kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii lixaad ee barnaamijka bayaanka danab. barnaamijka bayaanka danab waa barnaamij toddobaadle aan ku soo qaadano warar, sheekooyin iyo warbixino la xiriira ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska danab. barnaamijka bayaanka danab waxaa jimco kasta 10 barqanimo aad ka daawan kartaa bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab ama Facebook-ga Danab Media. waxaa sidoo kale ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Baydhabo, Radio Galgaduud iyo Radio Baladweyne isla maalinimada jimcaha ah 3:00 galabnimo. barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay toddobaadka ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska danab waxaana kamid ah ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska danab oo burburiyay fadhiismaha ay kooxda al-shabaab ku lahayd gobolka Shabeellaha Hoose. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo bogaadiyay howlgallada ciidanka danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Taliska ciidanka Mareykanka ee Africom oo gaadiid dagaal ugu deeqay ciidanka danab. waxaa kaloo barnaamijkaydu ku haynaa guulaha ciidanka danab ay ka soo hooyeen howlgalkii dib u qabsashada deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo dhawaan la soo gabagabeeyay. haddaba muxuu muhiim u ahaa howlgalkaasi, maxayse ka faa'iideen dadka deegaanka, iyo sidoo kale danab oo taageero siisa dhalinyarada ka soo goosata kooxda al-shabaab, maxayse iska bedelay noloshii dhalinyarada ka soo goosatay al-shabaab. barnaamijku waxaa idila socodsiinaya anoo Shilaawa Cabdilaahi Cabdiraxmaan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kale. ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa howlgal maalintii Sabtidii sameeyay waxay ku burburiyeen fariisimo ay maleeshiyaadka al-shabaab ku lahayd deegaanada galka Saalim iyo Maracade ee gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalka waxaa fuliyay ururka afraad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. fariisimaha ay ciidanku cagta mariyeen waxay kooxda al-shabaab u adeegsan jirtay inay lacaga baada kaga qaado dadka deegaanka. ciidanka danab ayaa kordhiyay howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo kooxaha kale ee halista ku ah amniga iyo nabadda. toddobaadkii hore ayay ahayd markii ururka afraad ee guutada 16aad ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay shidgooyooyin ka qaadeen wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo toddobaadkan tagay magaalada Kismaayo ayaa booqday xeryaha ururka shanaad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaaladaasi. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kormeeray saldhigyada ciidanka isagoo saraakiisha ciidanka ka xog wareystay howlaha ay ka wadaan gobolka Jubbada Hoose ee ay ugu jiraan soo celinta amniga iyo kala dambeynta. wuxuu ku ammaanay ciidanka danab kaalinta nafhurnimada leh ee ay ka qaadato difaaca dalka iyo dadka, isagoo ku booriyay inay si laba jibaaraan dadaalkooda ilaa si buuxda uga miro dhalinayaan. dhinaca kale, ra'iisul wasaaruhu waxa uu sidoo kale kormeeray xeryaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku yaala magaalada Kismaayo. taliska ciidanka Africom ee dowladda Mareykanka ayaa gaadiid 12 gaadhaya oo nooca dagaalka isla markaana loogu talagalay howlgallada ay wadaan ciidanka kumaandooska danab ku wareejiyay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. danab ayaa gaadiidka u isticmaali doonta dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab. munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho toddobaadkan oo ay ka qayb galeen taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa ka socday Africom ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage uu kula wareegay gaadiidkan. General Odawa ayaa uga mahad celiyay taliska ciidanka Africom deeqdan iyo taageerada ay markasta siiyaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab, wuxuuna sheegay in sidii loogu talagalay looga faa'iideysan doono gaadiidkan. saraakiil u hadlay Africom ayaa iyaguna sheegay inay ka go'an tahay inay sii wadaan taageeradooda kumaandooska danab si ay uga guuleystaan halgankooda. kuwaasi waxay ahaayeen wararkii toddobaadka ee ciidanka kumaandooska danab. weli waxaad daawanaysaan qaybtii lixaad ee barnaamijka bayaanka danab. rukumo bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab si aad u daawato barnaamij cusub toddobaad kasta. ururka toddobaad guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhawaan soo gabagabeeyay howlgal muddo ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe. howlgalkaasi oo looga adkaaday maleeshiyaadka al-shabaab loogana saaray deegaano badan. bayaanka danab ayaa warbixin gaara ka diyaariyay guulaha ay danab ka gaadhay howlgalkan. danab iyo ciidamada kale ee amniga Soomaaliya ayaa si adag uga shaqeynayay sidii nabadda
loo soo celin lahaa isla markaasina meesha looga saari lahaa kuwa nabadda diidan. waxaan horay u baahinay howlgal guulaystay oo 3 toddobaad ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe. howlgalka waxaa lagu xoreeyay deegaanada Wardagax, Warciise, Gaaleef, Qoordheere, Jilible, Xagarey iyo Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe. kumaandooska danab intii howlgalka uu socday waxay gudaha u galeen saldhigyo waaweyn oo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanadan, waxayna halkaasi ku qabteen maleeshiyaad iyo hub ay kooxdu lahayd. Axmed oo ah ku-xigeenka taliyaha ururka 7aad ee howlgalka fuliyay wuxuu sheegay in howlgalka Shabeellaha Dhexe uu ahaa guul weyn oo u soo hooyatay shacabka Soomaaliyeed. guusha aan ka gaarnay waxa waaye guul aad u weyn, waxaana ku jibnaa cadawgii ummadda Soomaaliyeed ee dhiig-yacabka ahay. sidoo kale waxaan ka dilnay tiro maleeshiyaad ah iyo horjoogayaashoodii. sidoo kale waxaan ka furanay hub fara badan. dadka deegaanada dib loo xoreeyay waa ay soo dhaweeyeen tallaabada danab ay ku xoreysay deegaanadooda. nolosha ayaa tartiib ugu soo laabanayso halkan, iyadoo maamulka deegaanadan ay rajeynayaan in ay ka faa'iideystaan fursadan. waxaan dareenay abnigaan dareenay oo aad iyo aadan ugu faraxnay. waxaan dareenay markii eeriyada in maaragtay culeyskii oo ka degayaan dareenay. hadda halahaas waa ugu mahad celinaynaa ciidanka danab beerihii lagu cariirihay ee la lahay waryaa beertaan adiga ma iskale, waryaa beertaan ma joogsan kartid, ma tabca kartid. cariirigeeda ciidanka naga reebay waa ciidanka danab ma hadan u haynaa. meesha aan joogno nabadgelyo ma haysanin, meesha aan joogno ku hurdimaynin, meesha aan joogno haddii alla yidhi waxaan ku haysanaa ma jirin. ciidanka danab ilow meel dheer gaarsiiya mahad calankooda kor u dhig. kumaandooska danab si ay u xaqiijiyaan guulihii la gaaray howlgalka gobolka Shabeellaha Dhexe in aysan hal bacaad lagu lisay noqonin, waxay sii wadaan howlgallo amni oo joogto ah oo ay ka sameeyaan deegaano hor leh. al-shabaab howlgalkaas waxaan ku gaarsiinay jab aad u weyn aan ku gaarsiinay, maadaama ay meesha ku waayeen dad ayaga xaggooda muhiim u ahay sida horjoogayaal. hub badanna aan uga furana. howlgalku waxyaabaha ku saabsanaa waxaa ka mid ah in cadawga burburinta cadawga ummadda Soomaaliyeed iyo ka saarista deegaanada ay hadda ku dhuumaalaysanayaan. dib u qabsashada deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa loo arkaa istiraatiijiyad muhiim u ah waajibaadka ciidanka kumaandooska danab oo dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay sidoo kale ballaariyay isku fidinta ay ka wadaan gobolada kale ee dalka ay saldhigyada ku leeyihiin. tan iyo markii kooxda al-shabaab looga adkaaday deegaano badan oo dalkeenna ah ayaa waxaa sii kordhayay dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka soo goosanaya kooxdan, kuwaasoo go'aansaday inay dib bulshooyinkooda ugu soo laabtaan. ciidanka danab ayaa ka taageera dhallinyarada isu soo dhiiba ama dagaalka lagu qabto in xarumo dhaqan celin loo diro. qaar badan ayaa markii la dhaqan celiyey noloshooduna isbedeshay dib ugu laabtay bulshadii ay hore uga tageen. ciidamada danab iyo kuwa kale ee amniga waxay xoojiyeen duqeynta iyo weerarada ka dhanka ah al-shabaab, taasoo keentay inay wiiqanto awoodda kooxda. danab ayaa si gaar ah ugu warqabta dhallinyarada la marin habaabiyey, waxaana ciidanku ka taageeraan dhallinyaradan inay soo baxsadaan oo ay ka fogaadaan nolosha halista iyo burburka ah. kumaandooska danab waxay ka caawiyaan kuwa ka soo goosta al-shabaab inay helaan dhiirigelin si ay dib ugu laabtaan qoysaskooda iyo bulshooyinkooda. sanadihii ugu dambeeyey ee ay shaqaynayeen ciidanka kumaandooska danab waxaa jira tiro aad u badan oo ka tirsanaan jiray nabadiintii al-shabaab, kuwaasoo isku soo dhiibay ciidanka kumaandooska danab, waxayna isku soo dhiibeen gobolada kala duwan ee ay ka howlgalaan ciidanka kumaandooska danab. isu soo dhiibi haddaa maqasho waa nin si voluntary ah ama si iskiis ah isagoo xor ah soo goostay ururka al-shabaab, kadibna isku soo dhiibay ciidamada kala duwan ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadgelyada iyo booliska. danabna waxay qayb ka tahay ciidamada kala duwan ee ay isku soo dhiibaan. yuusuf ma ahan magaciisa dhabta ah oo ka tirsan danab. wuxuu sheegay in qofka ka soo goosta al-shabaab ay kumaandooska danab mariyaan hanaan kala duwan oo uu ka mid yahay baaritaan dheeraad ah, kadibna loo diro xarumo dhaqan celin. ayagoo rafaadsan oo jir ahaan iyo maskax ahaan u duruufaysan ayay isu soo dhiibaan marka koowaad.
waxayna noo sheegaan inay fahmeen fikirka khaldan ay ku dhex jireen iyo been sheegidda ay al-shabaab ka been sheegayaan diinta islaamka iyo burcadiimeedka al-shabaab waa la dejiyaa waa nastaan waxa way dharka laga bedelaa cunno fiican ayaa la siiyaa caafimaadkooda la hubiyaa natiijada laga dhaxlay taageerada ay danab siiso dhalinyarada soo goosta waxaa ka mid ah in badan oo ka mid ah markii ay al-shabaab ay ka soo baxeen ay noloshoodu isbedeshay halkan waa xarun dhaqan celin ah waxaana lagu hayaa dhalinyarada si iskooda uga soo tagay al-shabaab kadib markay u caddaatay in hadafkii ay markii hore u galeen uu beenoobay maskaxdii way bedeleen sideen ku raacay bil markaan dhex joogaan fahmay waxay qaabkay yihiin inuu dad arxan daro oo shaqada arxan laabo inay yihiin aan ogaaday sidaa darteeda marka fal aan kusoo baxsan lahaa diyaarsaday sidee ugu soo baxsaday waxaa ku gelaysaa janna ku gelaysaa arrinkan waxyaabo badan aakhirada adduunka waa ku liibaanaysaa fikrada noocaasaa laga dhaadhiciyey markii aan ogaaday in falal xun ay ku qaaqayaan dad ay yihiin arxalaabayaal ah aan ogaaday ma ogeyn macnaha sida hadda dad masaakiin oo iska shaqaynaysanaysa hadda qarxi uu fulinayo sida hadda dad oo ashaadan fikirnayo kale oo la tuuranayo la dilayo ma uu rakabin sidaas dhalinyarada xarunta ay ku jirta waxay dareemayaan inay hadda u nool yihiin sida bulshada caadiga ah isla markaana ay ka raysteen nolol aad u adag waxaa la siiyey waxbarasho aasaasi ah iyo xirfado farsamada gacanta oo qorshuhu yahay in ay ku shaqaystaan markii halkani ay ka baxaan dhalinyarada hadda kusii haray gacmaha al-shabaab amase hadda kasii tirsan ururka xagjirka ee al-shabaab waxaanu u sheegaynaa inay isu soo dhiibaan ay isu soo dhiibistu furan tahay haddii isu soo dhiibi waayaan waxaanu u sheegaynaa oo halka u gudbinaynaa in ciidanka kumaandooska danab ay ugu tegi godadka iyo jararka iyo meel kasta ama hawdka bannaan iyo meel biyareba intaba in loogu tegi doono oo ciidanka kumaandooska danab ay bartooda ugu tegi doonaan marka hadda fursad bay haystaan fursadaas ha ka faa'iidaysteen dhalinyarta la khalday ee rafaadka iyo dhibaatadu ku haysato ee gumaysiga ku jira inay gumaysiga kasoo baxaan ayaan ugu baaqaynaa fariinta kumaandooska danab ay u hayaan dhalinyarada weli ku jirta al-shabaab waa in ay weli u furan tahay inay isa soo dhiibaan oo ay ka soo baxsadaan kooxda si ay u badbaadiyaan naftooda fadlan haddii aad rabto inaad isku soo dhiibto ciidanka sida gaarkaa u tababaran ee kumaandooska danab la soo xidhiidh taleefanada shaashada kaaga muuqda guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya qaybtii 6aad ee barnaamijka bayaanka danab ha mooganaan oo ku xidhnow bogga youtube-ka ee bayaanka danab ku dhufo calaamadda gambaleelka si aad ula socoto barnaamijka kan xiga waxaad warar iyo macluumaad ku saabsan kumaandooska danab aad ka daalacan kartaa bogga facebookga ee danab midiya sidoo kale barnaamijka bayaanka danab ka dhegayso jimco kasta 3:00 galabnimo idaacadaha kale ah radio muqdisho radio kismaayo radio galgaduud radio baydhabo iyo radio beledweyne intaan mar kale kulmi doono toddobaadka dambe haddii alla idmo iyo barnaamij cusub waxaa anigoo Shilaawa Cabdilaahi Cabdiraxmaan ee kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo